haween fara badan ayaa si ay u helaan midab cad oo aaminsan yihiin inuu soo jiito ragga waxay isticmaalaan kareemooyin saabuuno iyo waxyaabo kale oo midabkooda dabiiciga dhalan roga haddaba warbixin ay qortay ururka caafimaadka adduunka ayay qayladhaan uga soo saartay khatarta kareemooyinka laysku caddeeyo iyo tirada haweenka afrika ee isticmaala oo heer waaliya gaadhay sida wadamada Mali, Togo iyo Nigeria oo wadanka ugu badan oo 77% haweenku isticmaalaan. dalka Soomaaliyana tirada dumarka isticmaala ayaa aad u sarreysa inkastoo qiimeyn sax lagu sameyn. haddaba arrinka naxdinta leh ayaa in hadda culimada saynisku ka digeen kareemooyinka iyo daawooyinka laysku caddeeyo iyadoo la sheegay in daawooyinkan caadiyan loo isticmaali jiray jirooyinka halista ee maqaarka ku dhaca ayna ka kooban yihiin maadooyinka kortikoidka iyo hydroquinonka. maadooyinkan ayaa dhaawacyaan soo kabasho lahayn u geysta jirka bini'aadanka waxaana marka maqaarka daawooyinkan lagu caddeeyo ka dhalan kara bay yiraahdeen laba cawaaqib oo aad u daran ay adag tahay in lala tacaalo. waxaana tan hore lagu arkaa bay yiraahdeen waxyaabo daran oo kasoo baxa maqaarka korkiisa sida burooyin, haaro iyo gubniin ku reeba calaamado aan adag tahay inay ba'aan, alerji iyo finan iyo weliba goobaaba madow oo cadceedda marka ay ku dhacdana qolfo daran isku bedela. waxaase hadda kasii daran ay caddeeyeen in daawooyinkani saameyn guud ku reebaan guud ahaan caafimaadka halbowlayaasha jirka haweenka isticmaala. waxaana hadda la ogaaday in laga qaadi karo cudurro aad u halis badan sida dhiigkarka, macaanka, keliya xanuunka, kansarka iyo weliba cudurro kale oon la daweyn karin bay yidhaahdeen. haweenka jirkooda caddeeyey ayay sheegeen inay suurtagal tahay inay iyagu dhalaan carruur dhiman oo korsiintoodu adag tahay. haddaba dumarka Soomaaliyeed ayaa waxaa ilaah ku manaystay wejiyada iyo midabyada ugu qurxoon dunida ee akhtar jabiska, masciideedka iyo yusurka waxaana ka masayra haweenka caalamka intooda badan. waxaana hubqaadkooda, qaab dhismeedkooda iyo hanaan socodka haweenka Soomaaliyeed ay uga sitaan dhigooda dunida. waxaase isweydiin leh sababta ay ugu ciyaaraan quruxda wejiyadooda iyo caafimaadkooda. waxaana kasii daran in la nacdalay dumarka jirkooda dhalan roga oo ilaah ku tilmaamay alwaashima waxaana uu ka mamnuucay jannooyinkiisa inay galaan. marka aad fiidiyogan daawato waxaan ka codsanayaa gabadh waliba inay sii sheer garayso.